kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa udub Soomaali TV qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona xabsigii uu ku xirnaa Faysal Cabdi Bootaan oo ciidamo fara badan la geeyay sababtu maxay tahay warkeena ayaan ku soo qaadan doonaa waxaa kale oo warkeena ku soo qaadan doonaa daawadayaal maamulada Somaliland iyo sidoo kale waqooyi bari Soomaaliya oo mar kale dagaal isugu biratumanaya xilli ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland ceergaabo lagu arkay iyo dagaal oo mar kale laga cabsi qabo inuu ka qarxo ceergaabo wararkeena waxaa kale oo qayb ka noqon doona daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markan ka baaqday magaalada Kismaayo sababta uga baaqday maxay tahay warkeena ayaa ku soo qaadan doona waxaan kale oo idin soo gudbin doonaa xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jiro iyo caqabadaha adag ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa ay la kulmayso wararkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaan idin soo gudbin doonaa daawade haddii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe noo saar channelka like iyo share iyo comment ba waa xagaaga aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya xabsigii uu ku xirnaa Faysal Cabdi Bootaan ayaa waxaa saacadii la soo dhaafay la sheegay in ciidamo aad u fara badan oo kuwa maamulka waqooyi bari Soomaaliya la geeyay wararka hoose aan helayna ayaa waxay sheegayaan in xaalad siyaasadeed oo aad u cusub ay soo korortay saacadihii la soo dhaafay kadib markii maamulka Somaliland ay sheegeen in xoog ay ku furan doonaan Faysal Cabdi Bootaan xabsiga magaalada Laascaanood ayaa saacadaha aan ka soo gudubnay waxaa la tilmaamay in ciidankii ugu badnaa ay geeyeen ciidamada maamulka Somaliland waxaa loo sheegay haddii ay isku soo dayaan in tallaabo adag laga qaadi doono maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa heegankii ugu dambeeyay galay waxaana yoolkooda ugu weyn uu yahay inay difaacdaan deegaankooda isla markaana ay ka hortagaan cid kasta oo caqabad ku ah dhibaatana u keeni karto tanna waxay ka dhigan tahay in xiisad cusub mar kale ay ka jirto deegaanada maamulka waqooyi bari Soomaaliya Faysal Cabdi Bootaan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa lagu waday in la sii daayo hadda laakiin sheekadu waxay u muuqanaysaa in waji cusub ay yeelatay siyaasiyiin fara badan ayaa la yaaban go'aankooda siday u bedeleen maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyadoo maamulka waqooyi bari laga rabay in ay Faysal Cabdi Bootaan ay fasaxaan isla markaana xorriyadiisa uu dib u helo hadda laakiin wax waliba waxay u noqonaysaa mid fashil wax walba ay ku soo dhamaadeen sheekada ugu weyn ayaa waxa ay tahay in maamulka la yiraahdo Somaliland uu yoolkiisa ugu weyn uu yahay inay soo fasaxdaan Faysal Cabdi Bootaan halka maamulka waqooyi barina ay rabaan inay sii hayaan Faysal Cabdi Bootaan wararka sidoo kale waxay sheegayaan in xiisad cusub ay ka soo korortay deegaanada maamulka waqooyi bari gaar ahaan ceergaabo saacadii la soo dhaafay xiisad aad u culus ayaa ka jirta magaalada ceergaabo xiisadan ayaa waxaa la sheegay inay u dhaxaysay ciidamada maamulka Somaliland iyo sidoo kale kuwa maamulka waqooyi bari Soomaaliya saacad walibana waxaa laga cabsi qabaa in dagaal foolka fool ah oo dhaxmaro ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo kuwa Somaliland inkastoo beesha warsangeli hore u sheegtay inay taageersan tahay ciidamada maamulka Somaliland haddana warar hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan in saacad waliba haddii uu dagaal u dhaco in dhibaatada ugu xoogan ay la kulmi doonto beesha dhulbahante beesha warsangeli ayaa hore waxaa loo tilmaamay in xaaladda ay ku adag tahay isla markaana aysan marnaba rabin inay wax ku darsadaan beesha dhulbahante warsangeli ayaa ciidamo aad u fara badan hore ugu wareejiyay maamulka Somaliland iyo sidoo kale xabsi ciidan sida warar hoose aan ku helayno sidoo kale godka qooja cadde wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in mar kale saasaan colaadeed halkaasi laga dareemayo saacadihii la soo dhaafayna Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye hogaamiyaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa dhammaan ciidamada maamulka SC waxa uu ku amray in ay heegan ay u galaan dagaal isla markaana ay la dagaalamaan cid kasta oo mar kale weerar ku soo qaado maamulka waqooyi bari Soomaaliya waqooyi bari ayaa mar kale waxay la kulmaysaa culeyskii ugu xooganaa ebed maadaama dagaal laba jiha ah uu ku furan yahay dhinacna waxaa dagaal kaga ah Saciid Cabdullaahi Dani oo gibi ahaanba maamulkan aan ku qanacsaneen dhinacna Cabdiraxmaan Ciro dowladda federaalka Soomaaliya ayay horey maamulkan codsi ballaaran ugu jeediyeen iyagoona ka codsaday in ay hub iyo ciidanba
ay la soo garab istaagaan maadaama dagaal laba geesood ah uu ku furan yahay maamulkan. laakiin dowladda ayaa ka jawaabi weysay cabashada Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye, waxaana la sheegay in Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye inuu ka carooday cabashadiisa sidii ay dowladda federaalka Soomaaliya uga soo jawaabi weysay. wararka sidoo kale waxay sheegayaan in Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye laga yaabo xataa inuu xiriirka u jaro dowladda dhexe. inkastoo beesha dhulbahante ee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud abaal weyn ay u hayso, haddana culayska heesta dartiis in Cabdiqaadir Axmed oo Cali inuu xiriirka u jaro madaxweyne xasan sheekh ayaa laga yaabaa. inkastoo garaadada beesha dhulbahante saacadihii ugu dambeeyay kulamo isdaba joog ah ay yeelanayeen, waxaana kulamadaasi ay kaga arrinsanayeen xaaladda guud ee deegaanadooda iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan iyo sida wax waliba lagu bedeli karo xaalka siyaasadeed sida uu noqon karo. balse waxaa la wada sugayaa qorshaha isbeddelka imaan kara iyo beesha dhulbahante halka ay tegi doonto. dhinaca kale daawadayaal, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa mar kale khilaaf xoogan uu ka dhex qarxay. warar hoose ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ay sheegayeen in axmed madoobe iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud kale shakidooda uu sabab uu u yahay ciidamada faraha badan ee labada diyaaradood ka kooban ee dowladda ay doonaysay inay geyso magaalada Kismaayo. taas darteed ayaa waxaa la sheegay in ay sabab u ahayd in uu axmed madoobe uu ka shakiyay dowladda dhexe, isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya uu ku kalsoonaa waayo. wararka sidoo kale waxay itibaaxayaan daawadayaal, axmed maxamed islaam axmed madoobe yoolkiisa ugu weyn waxa uu yahay in magaalada Kismaayo marnabo uusan u ogolaanin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa danab ayaa qaybo ka mid ah magaalada ku sugan, inkastoo saacadihii lasoo dhaafay saraakiisha ciidanka danab ay go'aan adag ay qaateen. go'aankaasi ugu weynna waxa uu yahay in ay soo xiraan axmed maxamed islaam axmed madoobe. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu qorsheynayay inuu safar uu ku tago magaalada Kismaayo, laakiin safarkaasi inuu baaqday waxaa laga warhayay ka hor intaysan diyaaradaha magaalada Muqdisho aysan ka kicin. diyaaradihii lagu waday in garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan in uu ka degto gebi ahaanba diyaaradahaasi ayaa axmed madoobe waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya u sheegay inuusan raalli ka ahayn diyaaradaha iyo ciidanka tirada badan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wato. safarada hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tagi jiray deegaanada Jubbaland sidaan oo kale ciidamo uusan u wadan jirin, maadaama axmed madoobe uusan kalsooni uu ku qabin. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rabay inuu ammaankiisa xaqiijisto, laakiin se axmed madoobe ayaa u arkay in dowladda dhexe culays ay saarayso maamulkiisa, taasna uusan raalli ka ahayn. xiisadaani jirtana waxay u muuqataa in saameyn xoogan ay yeelanayso. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV saaxiibayaal waa naga intaa. daawada haddii aad janaalkeena Udub Somali TV aad ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, like iyo share iyo comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin, nabadgelyo.